weligaa ma suuraysatay meeshan oo kale ayaa waddankeena ku taala. tuuladan yar waxa ay dhacdaa koonfur galbeed magaalada Ceerigaabo, waxaana loo yaqaanaa Jannada Ifka. magaceeda rasmiga waa Dayaxa, waxa ayna caan ku tahay xabxabka iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan. waa dhul beeraley ah oo ku dhex yaala buura dhexdooda. waxaanu ku qaadanay tuuladan yar muddo 2 cisho ah, wuxuuna ahaa waqti aad iyo aad u qiimo badan. saacaddu waxay ku sii dhowdahay ilaa 1 iyo barkii. waxa weeye halkan xaggan saraan ku qadaynaynaa oo waxa weeye geed barda hoostiisa ku qadaynaa. qadaan soo diyaarsanay. dhakhtarna halkan buu ku farxalanaya. waxa weeye waa jannooyin saaran durdurka yar baa laga farxalanaya, kadibna korka la soo fuulaya, halkaas lagu qadaynaya. geedkaas waxa weeye aan waqti ku qaadanna. biyahan waa nadiif. Dayaxa waxa weeyaan dooxyo, durdur, biyo macaan, kuwa dhanaan, kuwa qalaad, intuba way dhinac maraan. waxa weeye hadda xagga saraan u baxaya halqadada inaan la iga dhameyn. waxa weeye waka geedka hoostiisa ayaan ku qadaynaynaa. halkan waa beer weeyaan. halkan waa beer. waxa weeye xaggaas sare na wadadii baa marta, xaggana dooxii u dhowday. marka geedkan waa geed aad habkiisu u qabowey. maxaa sugaysaan? ninkan Cabdisamad markaa cuntada timaado waxa weeye lama yaqaanaba, wuu ilaawaa, isagaa is ilaawaa. cuntadana kama kaco ilaa la xasuusiyo. Cabdisamad intaanu wadana challenge-yada noocaasa waynu ka baxaynaa. intaan wallaahi si adag baan wax u cunnaa. waxa weeye balan soo fadhiista anuguna kan. waxa weeyaan halkan waxa yaalla waa bariis iyo khudrad nooc walba leh. waa kalluunkii, kaabashkii, baytaraafkii, wixii oo dhan, kaaradkii exactly. waxaan oo khudradana waxay ka baxdaa isla halkan beerahan un bay ka baxdaa. khudrad meel kale laga soo qaaday maaha. waxaad aragtaan garanaysaa waa subagii loo waa yellow. maxaad moosay mango. hadda saacaddu waa 3 iyo barkii galabnimo. waxa weeye waanu qadaynay, waanu nafisnay, waanu yara harsanay. dabadeedna waxa weeye shaahan xaabaa lagu soo kariyey. dee shaahaya baan la ku yiri kaas ma idinka dhiman. waa casariyihii marka. waxa weeye waa bigays. xasuusin gaara shaahu halkan buu ka baxaa. wax kasta oo halkan lagu isticmaalayo waxa weeye halkan bay ka baxdaa. sidoo kale geedka iga dambeeya badidiina waa taqaanaan, waxa la yiraahdaa baxrasaaf. waxa weeye qolyaha wax noo sheegay 1000 sanadood jiray wax ka badan. waxa weeye geedaha ugu qadiimisan buu ka mid yahay. iminka halkan taagannahay waxa weeye waa caws, waa durdurkii, waxa weeyaan waa beertii oo ay khudradii nooc walba ka baxayso. Suudaani ma beeraya bay nagu dhahdeen. waxa weeye waxay beerayaan fruitiski iyo waxa weeye khudradii kale ee asaasiga ahayd oo la karsan jiray. meesha waa janno weeyaan, waa hayban weeyaan, hayban. kadib socdaalkayagii waxa aanu soo gaadhnay iskuulka Dayaxa oo wax ka yar 10 kiiloomitir u jira isla magaalada. iskuulkan waxa la aasaasay waqtigii isticmaalkii Ingiriiska iyadoo lagu baran jiray culuumta beeraha, maadaama dhulkan uu ku yaala uu yahay dhul beeraley ah. iskuulkan dagaaladii waxa ay soo gaarsiiyeen burbur aad u fara badan, balse waxa dib u habeyn loogu sameeyay sanadii 2016.
iskuulkan waxa uu bad ahaan ku fadhiyaa 2 kilomitir by 1 kilomitir square. hadda waxaa loo bixiyey Dayaxa Secondary School waana boarding school ay dhigtaan hablaha iyo inamada labaduba. Soomaalidu waxay inta lag bay raacdaa diyaarad ka dhigan adduunyada inta diyaarada weyn la sameeyo Soomaalidu diyaarad yaraa Soomaalidu diyaarad yaraa wax la yaab waxa weeye qalad baa la yiraahdo wax laga saarayeen orgida iyo ama riyaha orgi baan ka sameeyay yoontiis waa kan orgi senyoon baan ka saaray xundurtiisi waa taa isalkii iyo xiniyihii wixii waa kuwa halkan waa labadii lugood madaxii xundurtii waa ka marka way su'aal waxaan waa neef haragiisa neefkan haragiisa qaabkee baa looga saaray la neefkiisaas soo la dhile ee waxa weeye u jeexmayadi xagga dambe laga saarayo xagga dambe labada lugood dambe saa loo soo jeexaya saama loo soo jeexay lugta kala saa loogu jeexaya saas loo hugaya wala hugaya saas loo hugaya madaxa laga saaraya intii la hugayna waa tan la isku soo xiro dabada markii la hugay waa laga soo siibay qarbadkii way faa'iidadu leeyahay waa maxay biyaha lagu shubtaa biyaha maweel baa la waayay biyaha maweel baa la waayay ma dadkeena hore dhaqankeena hore wax kale ma dhaxsan jirin marka miyuu qaboojinaya biyaha uu qaboojinaya marka biyaha cabto waad istariixaysaa dhadhankii ka waran dhadhankii maanu neef ka dhadhamin baa neef ka dhadhamaya asal baa la mariyay asal محر جات كلا يراهم ما يدقي محركي ولا مري محركي ما يدقي ولا مري دبنا هرق يسيبا واحد قال لي أصلكي بعد من ساو قاي تنو كات كي وحويا علم قاع الصبرتا ناف كان هرق يسا والله هو جاي فهميسان انت الله هو جاي والله قصة صاري أيام بيلقوا شغلنا وحوي علم قاع سومالي بريجرو حس استعمالي إنه واحد نسوق إن هالكي ديستنيشن كيبو ها أو وحوي سومين بقوله يوتفولوا وين ويمكن كسيدا داعينه waxa weeyaan qoladii kala way iga sii horeeyaan laakiin anigu waa ka dambeynaya maadaama aan doonayo inaad indhihiina wax qurux badan ku aragtaan meeshan waa dareemi karaysaan quruxdeeda waxa weeyaan halkan aan ku sii dhaadhacaynaa iminka waa swimming pool waa natural swimming pool weeyaan gawaaridiina waxa weeye ma mari karayaan oo halkaas saraan kaga nimi waxa weeye halkan baa toos looga dhaadhacaya halkan waad arkaysaan qof baa degan assalaamu calaykum iska warraawo waa fiican seetay waa fiican alxamdulilah halkan aan ku sugannahay maxaa la yidhahdaa Dayaxa la yidhaahdaa wax la yidhaahdaa waa meeshii komishiinka waxa la yidhaahdaa dari madow biyaha macaan iyo biyaha qadhaadh baa iskaga darba biyo macaan iyo biyo qadhaadh baa halkan isaga darma waay halkaan naga dambaysay dad ku sii socdaan waa biyo macaan marka waa lagu dabaalan karaya halkan imkaan soo dhaafay maryo iyo waxba yaal ma adiga degan niga waa beerta marka beertan adiga iska leh ma sha Allah awow ilaahay ku xiftiyo kulligeemba ma sha Allah waxa weeyaan wad arkaysaan qof weyn oo waxa weey da'diisu weyn tahay oo haddana waxa weey noloshiisii ma sha Allah halka cimrigiisii ku qaadanaya waxa weey waqtigiisii joogiisa halka ku qaadanaya beertiisii saga nool waxa weeyaan wax loo dhigay ma jiraan waana wax aad iyo aad u qaaliya waana nolosha qof kasta oo bani aadam jeclaan lahaa inuu waxa weeyaan ku noolaado hadda waxaan soo soconaba waxa weeye waxaan soo gaadhnay destination-keygii halkan haddaba difference-ga u dhaxeeya baa la yidhi waa biyo macaan iyo biyo qadhaadh baa isaga darsamaya halkan deegaanka Dayaxa ayuu waxa weeye togani hoos yimaadaa cabdisabadow oday yar oo halka ku soo dhaafay wixii ugu halkan waxa isaga darsamo biyaha qadhaadh iyo biyaha macaan muxuu ka wadaa waxa weeyaan biyaha aan aragnay midigtayna waa biyo macaan kuwa baa macaan waa macaan iyo qadhaadh meelkooda yaal marka halka hore isaga darsamayaan way waxa weeyaan bal wan proof karaynayna waxa weeyaan sax tahay maadaama aanu goob joognahay kuwa wada dhameena waxa yihiin baan eegaynaa kuwana wada dhameena ila waxa wala iska shaandheeya marka dad wax ku sheegaan toos looma qaato moogti dhadhami indhaha ku macalline iyo carabkaaga kuwana dhadhami kuwan waa biyo caadi oo macaan kuwana dhadhami bas kuwana anaga
true history والله ورون والله بيها الواحد لما ذا بيو يعني أضق ويان كون نوى بيها عادي جاي نعمه ها هالكاس كي مادان كدب نوى كون يجوا سكود السماء وكوا قارنوا كون مركها هالكاس يستقدر السماء واحد سوق أن بيها دور كاحق جول جدا وواحد ويان عيلة لبضن إن دباشة هذا يقنن واحد ويان مركب نركي لسي بحيجو نكيد اخترنا هالك بدونه يعينو كيرا عياره أنا قلت درب ستايو وحوي در دبالو ما سود ديار جروبين لكن واحد سجى طور لا محل كذا أنتوا من ديار بس هذا ولا محمد واو كورة من بين دار تاي واو طب ما فينا لا ناتا meeshan waa ceel waxa weeye dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay dad badan liqday oo waxa weeye aad iyo aad khatar u tahay laakiin waxa weeye nimankan waa dabaal yaqaan weeye ninkan ceelka ceelaf weyn buu dabaasha ku bartay ninkaasina waxa weeyaan ceel la yiraahdo balliga dhaanka oo burco ku yaalo ku bartay dabaasha hadda saacad waxay ku sii dhowdahay 5tii galabnimo waxaanu istiil ku sugannahay dooxadii weyneed dhexdeeda laakiin cabsimaad uu soo dabaashay anna waa soo dalxiisay ma sha Allah tii degan man soo qaadanay muuqaalka halkan baan ku soo gabagabayn doonaa muuqaalka kan xiga maxaad leedahay toddobaadkan soo socda oo dhan waxaan ku jiri doonaa dalxiisyo iyo vacationno iyo wax koori waddankeena aan ku raaxaysano ma sha Allah sidoo kale meelo badan oo degto in ka soo dhicmayna iyo meelo kale aad u bilic qurux badan channelka indhaha ku haya subscribe like share kana mid noqda asxaab